سند لهانتيمبا كنسو دواد برنامج كماولة دلانكا وكداوتان مركزو بوغتان channel كانو كلين يوتيوب ادلان دلال كوريه تدوبات بشيكا عصوبة ياكم مغشان شيكا ان تدوبات كيدن كوهينان عروري وحي غيبتي دي سديدات هاي تحناها شيكوين كبغورة ايان iyo qoomiyada boqorada dagaalka kula jirtay hela sheekooyin tiro badan oo horeeyeen ka soo maqalay boqorada iyo boqortooyada ay ka taliso waxaan sidoo kale wax ka baranay cadowga boqortooyada had iyo jeer dagaalka kula jira ee hela hogaamiso waa sheeko ku saabsan wanaag iyo xumaan dagaalamaysa boqoradu waxay leedahay qalbi wanaagsan iyo naxariis ay dadka iyo deegaanka ay boqorada ka tahay maamusho balse cadowga ka soo horjeeda ayaa dagaal ugu jira inuu baabiyo naxariista wanaagga iyo jacaylka ka dhaxeeya boqortooyada iyo dadka ay boqoradu maamusho aanse ku bilaabo ee waxa ahayd aroorsan xilli weesani baryay boqoraduna ay si nabad uga soo toostay qasriga boqortooyada ee ku nooshahay markii waagu baryay ay sheeda ka halaxsatay faraskeeda ay had iyo jeer boqoradu ku tamashlayso oo ordaya subax hore ayay ahayd kadibna fariskeeda ayay fuushay waxay doonaysay inay ayda iyo dhulka qorxoon ee boqortooyada ku hareeraysan ay tamashlo u aado muddo markii ay socotay oo fariskeedu daalay ayay wax yar sheeda ka aragtay in lagu jiro xilli barwaaqo gu'a oo midhaha dhirtu bislaadeen waxaana soo guratay noocyo kala duwan midhaha deegaanka ka baxa oo ah kuwa la cuno waxay soo guratay noocyo kala duwan oo midhaha hoobaanta ah deegaanka ka baxay xataa faraskeeda ayay qayb ka siisay kadibna way lugeeyeen muddo ayay ayda lugeynayeen dhanka kalena waxa ayda lugeynaysa qoomiyada boqorada dagaalka kula jirta ee heela iyo adeegaheeda madaxdiin waxay kaynta ka dhex guranayaan dhar sumaysan way u adeegsadaan sixirka iyo sumaynta boqortooyada ay dagaalka kula jiraan madaxdiin oo heela daba ordaya midho uu deegaanka ka soo gurtayna sita ayaa ku turunturooday dhagax uusan arkaynin هنا انت كحناقده ayay tiri hadii aanad maalin kasta wax doqonnimo la sameeynin runtii waxay noqon lahayd maalin kale mar walba iyo gobol aan loo baahnayn ayaad ku kufaysaa oo aad ku dhacaysaa birta ayay aad u kala bartay heela kuwa waxyeelada leh kuwa aadanaha lagu dhibaateeyo kuwa sunta ee nolosha bilaadanka khatar geliya mid kamid ah dhirtaas ayay soo goosatay waxayna ku tijaabinaysaa adeegaheeda si aan naxariis lahayn markii uu sanka saaray ayuu hindhisay iyo qufax kala goyn waayay aad ayuu u sii dawaaqay mar kasta oo u sii dhaweeyaba iyana waxa ay tubila naxariis caruuray way ku qosashay waxay ku tidhi doqonnimadaada ayaan kuugu eegay waad arkaysaa in geedkani sun yahay markaasaad haddana mar kale sankaaga u sii dhaweynaysaa waxay tuan naxariis lahayn adeegaheeda ayay sun kasta ku tijaabin jirtay ilaa markii dambana caruuray uu noqday qof sidaas u eeg muddo kadibna waxay sheeda ka aragtay heela iftiin iyo ila iska baxaya meel ka durugsan waxay adeegaheeda ku tidhi aamus waxba ii muuqda waxaan doonayaa inaan soo eego ee halkaaga ka dhaqaaqin si tartiib ah ayay ugu socotay dhanka iftiinku ka baxayay iyadoo aan weli gaarin ayay ku sii socotay dhanka kalena waxaa ka soo socda boqorada iyo faraskeeda boqorada ayaa iyaduna aragtay iftiinka baxaya faraskeeda ayay ku tiri halkan joog bal aniga waxatan waxa uu yahay balse ma joogin oo uu daba socday muddo ayay soo socotay muddo markay boqoradu socotayna faraskeeda ayaa ka daba yimi wuuna u digay oo ka joog ayuu yiri khatar ayay u eg tahay mase maqal boqoradii hare ayay u socotay iftiinka badan ee u dhaxeeyay darteed ismaysan arkayn balse waxa labada dhan ka soo socday boqorada ayaan iyo qoomiyada heela midna midka kale ma arko balse waxa mid walba sidiisa gaarka u beegsanaya oo doonaya inuu ogaado halka uu ka imanaya leerka cajiibka ah ee u muuqda balse wax yar kadib ay soo gaareen taash saaran dhisme oo iftiin bixinaya kaliya ay indhaha isku dhufteen halkan maxaad ka qabanaysaa iyo halkan maxaad ka qabanaysaa ayay isweydiiyeen kadibna waxay ku soo ordeen taashkii waxaana markiiba haleeshay oo la booday heela waxay ku tidhi aniga ayaa iskale
waa taashkayga waa taash boqoreed boqorada ayaa ku jiri taashkan boqorada ayaa loogu talagalay oo kaliya adiguna boqorad ma tihid waxay ku tiriyaa ku yidhi anigu boqorad meehi hadda ayaa noqonaya taajkana waan xiranaya waad arkaysaa markay qumayadu madaxeeda saartay ayuu joojiyey iftiinkii waxa la yidhana waa u bixin waaya caruuray faraskina waa u yaabay waxay ku tiri aniga ayaa iskale weligayna lahaanaya waana taashkaygii boqoradii mar kaliya ayuu iftiinkii joojiyey ayuu madaxtiin ku yidhi hela sababtuu joojiyeyna waxay ka dhigan tahay taajkan waxaa loogu talagalay boqorada dhabta oo kaliya adiguna boqorad ma tihid kadibna intay xanaaqday ayay ku jeesatay madaxdiin way ku tiri iska aamus waxay dulligii wax ku hadlimaysidee balse boqorada ayaa ku tiri waa runtii taajkan waxaa loogu talagalay boqorada oo kaliya wuxuuna siin karaa awood dheeriya oo uusan dadka kale siinaynin hela way iska diiday oo way ku qosashay waxay tiri weligay aniga ayaa lahaanaya way qaadatay kadibna way iska tagtay iyad iyo madaxdiinba boqorada ayaa ka daba oraday mana doonayso in taajkan mucjisada ahi uu gacanta qumayada galo way ka daba orad waxay ku tiri istaag waxbaan doonayaa inaan kuu sheego haddii aad taajka igu soo wareejiso waxaan kuu sheegayaa sirta ka dambaysa quruxdayda ee aad had iyo jeer baadigobka ugu jirto weligayna been ma sheegin oo taa waxa markhaati iiga ah faraskayga soo sidaas maaha ayay boqoradu faraskeeda weydiisay isna waa uga markhaati furay hela oo nolosheeda oo dhan baadigoob ugu jirtay inay ogaato sababta ay boqoradu iyada uga qurux badan tahay ayaa tidhi haddii aad sidaas yeelayso ay dhab tahay waan ogolahay balse marnaba si dhayala kuma heli kartid taajkan haddii aad maskax badan tahay oo kaliya ayaad qaadan kartaa waxay soo saartay muraayadiida ay wax ku saxirto 3 bogos oo buluuga ayay ku samaysay kadibna waxay ku dhex riday taajkii dhammaantood ayaa carfriis hor iyo daba marisay oo wareejisay waxay ku jiri 3 doorasho oo kaliya ayaad leeday haddii 3da nasiibba aad weydo taajka aniga ayaa iska lahaanaya ku nasiibso bogoska uu hadda taajka ku jiro iyadoo weliba qoslaysa boqorada ayaa awoodeedu dhan adeegsatay waxayna eegaysaa 3da taaj ay qumayadu ishor iyo hareer wado kolba mid ayay u malaynaysaa kii koowaad ayay ku nasiibsatay balse nasiib darro ma ahayn oo taajka kuma jirin qumayaduna way ku qosashay waxay ku tidhi waad garan weyday kan ma ahayn ee taajku kan ayuu ku jiray haddana 2 fursadood oo kaliya ayaad haysataa haddii 2da fursadood kaa gubtaan taajku aniga ayuu weligay ila joogayaa mar kale ayay boqoradu awoodeedoo dhan isticmaashay kor iyo hoosba way fiirisay waxaana doonaysaa inuusan markan si dhab yar gacanteeda uga bixin taajku kii ay moodaysay ayay taabatay balse kanna waxba kuma jiraan haddana mar kale ayay arrintan qumayada farax gelisay waxay ku tiri hal fursad oo kaliya ayaa ku hadhay boqoraduna waxay ka codsatay xataa faraskeedu inuu markan caawiyo si ay taajka ugu guulaystaan indhaha ayay wareejiyeen wadoodu dhanna boqorada iyo faraskeeduba way adeegsanayeen balse aysan markan u khasaarin markii dambena waxay taabatay boqoradu kii ay moodaysay faraskuna wuu ku raacay nasiib wanaagna waxaa ka soo baxay taajkii balse qumayada ayaa xanaaqday waxay tidhi maya waxaan ku heshinay oo dhan waan isaga baxay yeeli maayo sidaad ku heli kartaa boqorada ayaa ku tidhi sawtaynu ballan gallay dadka wanaagsan ee ballanta kama baxaan balse qumayadu waa iska diiday qumayaduna dhartii sumaysnayd ay ka soo gurtay duurka ayay boqorada ku soo tuurtay si ay u sumayso balse faraskeeda ayaa boqorada ka badbaadiyey wuxuuna dub u tuuray geedkii ay u soo tuurtay ee sumaysnaa wax yar kadibna wuxuu faraska ku waashay qufac iyo hindhiso boqoradu markiiba waxay dareentay inay qumayadu sumayn rabtay waxayna faraska kula talisay inuu cuno midhaha dhirta laga soo guray ee cas qayb ka mida midhahaasoo gacanta madaxdiin ku jiray ayuu markiiba farasku arkay kadibna intuu madaxdiin dhulka ku tuuray ayuu midhahii cunay markiina waa u ladnaaday xanuunkiina isla madaxdiin ayuu ku wareegay boqoradu waxay u tagtay qumayada waxayna ku tidhi waatan ballan gallay waxaan kuu sheegayaa sirta ka dambaysa quruxda iyo wanaagga aan leeyahay haddii aad taajkan igu soo wareejiso sidaasoo keliya ayaanad ku ogaan kartaa waxay tidhi waa hagaag
weligeyba taas ayaan doonayay maantana doonayaa waxaan rabaa inaan noqdo tan ugu quruxda badan ee boqortooyada iyo deegaanka sirta adiga quruxdaada ka dambaysa ayaan weligeyba dagaal ugu jiray haddii aad taa igaga bedelanayso ay dhab kaa tahay waan ku siinayaa taajka ee ii sheeg waxaad cunto ama aad ismariso iyo sababta aad u qurux badnaatay waxay tidhi haye waan ku sugayaa ii dhaqso warkay gaadhsii markay boqoradu taajkeeda gacanta saartay ayuu markiiba olol iyo hilaac iyo iftiin bixiyey ka qurux badan midii uu bixinayay markii uu gacanta qumayada ku jiray kadibna way soo kicisay boqoradu waxay ku tidhi tani waxay astaan u tahay in taajkan loogu talagalay oo keliya boqorada haddiise aad doonayso inaan kuu sheego sababta ka dambaysa quruxdeeda waxaad u malaynayso dhan maaha waxna ma cunin waxna ma marsan quruxdu waxay ku jirtaa qalbiga wanaagsan iyo yaqiinta habboon qofku ka qalbi wanaagsan yahay kana naxariis badan yahay ayuu adduunka guudkeeda ka qurux badan yahay dhibaataynta shirqoolka dilka iyo xumaanta laguma qurux badnaado balse taa beddelkeeda haddii aad noqoto qof naxariis badan noolaha alla abuurtay oo dhan nabadgelisa waxaad noqon kartaa qofka ugu qurxoon ee ku nool deegaankan balse taas ma rumaysan qumayadu boqoraduna taajka ayay madaxeeda saartay mar kaliyana waxau ka dhigay iyadiyo faraskeediiba waxaan la arki karaynin madaxdiin iyo qumayada helena mar kaliya ayay boqoradii waayeen waxayna rumaysan kari waayeen sida ay mar kaliya indhahooda uga lumeen way u arki waayeen boqoraduna waxay kula talisay qumayada in wanaagoo dhan uu ku sugan yahay qalbiga wanaagsan balse midaas qumayadu ma aaminin waxay ku tidhi waxaan adeegsan doonaa faalkayga iyo dhirta laga baadho wax aragga si aan u ogaado sirta ka dambaysa quruxdaada boqoradda iyo faraskeedina waxay ku soo laabteen qasriga boqortooyada waxaana taajkeedii dhigtay meel ay gaar u ilaashatay isla 7 muruqmaal ee boqorada u shaqeeya ayaa iyaguna yimi qasriga boqortooyada waxay ku yidhaahdeen waxaan maqalnay inaad doontay midho waxay ku tidhi haa midho ayaan annaga iyo faraskuba soo gurnay iyagoo buuxa waanaga beerta iyo daaradda dhignay ee halkaas ayaynu ku cunaynaa dhammaantood way ku farxeen 7 muruqmaal waxayna u baxeen beerta boqortooyada halkaasay boqoradu keentay midhihii iyada iyo faraskeedu ay soo gureen boqorka ayay uga warantay waxa iyada iyo heela dhex maray iyo sidii ay uga warantay sirta quruxdeeda ku saabsan waxay tidhi waad og tahay uma jirto sir aniga ii qarsoon iyo wanaagoo dhani waxa uu ku jiraa inaad dadka caawiyo iyo qalbi wanaagga iyadana sidaas ayaan u sheegay boqorkuna waxa uu ku yidhi waa runtaa kadibna boqorka iyo 7 muruqmaal ayaa si wada jira ugu xafladeeyay qasriga boqortooyada horteeda halkaasay ku cuneen midhihii kala duwanaa ay soo gureen halka dhanka kalena qumayada hela iyo adeegaheeda madaxdiin ay walaaqayaan dhir sun iyo sixir loo adeegsanayo si ay balmar u nolosheeda u ogaato sirta ka dambaysa quruxda waxay tahay intii cabti waxyaabaha isku dardartay ayay tiri laga yaabee hadda inaan helay oo tan ay noqonayso wixaan ku qurxoon lahaa balse xaqiiqadu waxay tahay caruuray tani dhab ahaantii maaha waxay qumayadu ku qurux badnaan lahayd wanaagga iyo quruxda qofku waxay ku jirtaa qalbigiisa sidaas ayaan sheekada tanna kaga baranaynaa in wanaaggu yahay quruxda qofka halka xumaanta iyo xasadkuna yahay xumaanta qofka intaynu kaliya toddobaadka soo socda sheekada tan ku xigta isugu imanayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo waqtigu ha idin wacnaado